diyaar waxaan u nahay dagaalkiina diyaar u nahay dhiigiina ilaa labada gaatimo inoo balana anigu waa ku dhaawacmay waan u dhimanayaa insha Allah noloshayda waxaan ku xisaabtamay amaalinta ama noolaada waxa ka haray inaan ku dhameystiro laascaanood ama anoo nool oo nabadgelyo ku nool inaan ku noolaado xayad ku jiro ama inaan ku dhinto naftayda اسيقول وحوي halkan waxa taagan beesha Yaxya Cabdalle maanta diyaar waan dalka xoreyso waxaweye halkan baa lagu jira halkan kaan hore loo sii wadayaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaweye isku duubni iyo kuwa gallo dhamaanteesa u dhanay dadka yar yar halkan joogo oo halkan jooga inaanu hal mar gacan dira ku wada qabano beenu meesha uu intaas joogtaana waxay halgeeysaa dalka waxay u nooshahay in dalka halgan waa ciidanka jiida hore ee beesha Yaxya Cabdalle kana soo dagaalamay firinta hore 6 bilood in ka badan imikana diyaar oo xoreynta dalka iyo diinta iyo dadka gobolada SSC wax badan ka soo gaaray wax badan soo gaarsiin doona insha Allah cadawga haddana cadawgii fogeeyay insha Allah dhamaan iyaga isku duwan beelaha SSC imikana waxaan diyaar u nahay inaanu soo afjaro inta naga hadhay meesha dadka yar ay ku wareegayaan kuna sii jiri maayaan insha Allah bilmillaah kariim isbuuc kadib waad maqli doontaan oo way dhaafay insha Allah bilmillaah kariim ciidankan waa ciidanka jiida hore Yaxye wuxuu diyaar u yahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa difaacdo oo uu dhigiisa iyo naftiisa u horo 6 biloodna uu ka soo dagaalamayay jiida hore oo horena ugu horay haddana uu diyaar u yahay inuu u horo waxaan nahay ciidamada SSC ee ku sugan gobolka Sool magaalada Laascaanood ilaahay alla soo keenay ilaahay ma hadla alxamdulillah waxaan nahay anagu ma ciidamada ku sugan jiida hore ee magaalada Laascaanood ciidamada Yaxya nahay aan ahaano ciidamada anagu haddana waxa weeyaan diyaar waxaan nahay Soomaaliland aan ku shishiidno aan diyaar u nahay ama soo cataabana ma xaqayli ama dumar ha u yeedhaan rag ha u yeedhaan anagu diyaar waxaan nahay dagaalkiina diyaar u nahay dhiigiina ilaa labada gaatimo inoo balana anigu waa ku dhaawacmay waan u dhimanayaa insha Allah noloshayda waxaan ku xisaabtamay amaalinta ama noolaada waxa ka haray inaan ku dhameystiro laascaanood ama anoo nool oo nabadgelyo ku nool inaan ku noolaado xayad ku joogo ama inaan ku dhinto nafta waayo marka isaaq waxaan u sheegayaa ama qayliya ama buuqa annaga balanteenu waa dagaal dumarka oo yar waxaan u sheegayaa ataa way iska dajiida soo gala balanteenu waa dagaal waxaan u dhimanaynaa una dhaawacnaa una dhimanaynaa waddankayaga hawaya la qaban doona caawa la qaban doona aan nabadgelyo ku seexano ragga yaga aan anagu dumarkoodii nahay waxaan u soo baxnay dareenka dadka yaga iyo ragga yaga jiida ku dhimanaya ee aqalladooda hoosooda inta loogu yimi waxna lagu dilay welina wax lagu gargaraacayo ninkuna waxa weeye qofku baantii laascaanood inuu ku dhinto maxaan ku macno weyn keeni mayso waxaa macnaa ninka aqalkaadii kugu haysta kugu dilay kuguna haysta baaqigana inuu kugu xukumo kugu dilay kuguna haysta baaqigana inuu kugu xukumo doonaya yaan u soo baxnay inaanu iska celino cadawga insha Allah waan ka guud ciidankan aad arkaysan waa ciidanka beesha Yaxye ee ku sugan difaaca hore Laascaanood waxaan Muusaan Daraabiyo kooxdooda u sheegnaa inaan maxay tahay jiida ku jirno marka horena ku jirnay Muusaan Daraabi waxaan leenahay oo inoo dagaal isu jidaan ciyaalka yar soo diray sida maxay tahay oo ka soo xaday sida iskuulka iyo mutaqaana saacadaha ka soo saartana waana soo afjarnaa intii kalena waan soo afjarnay inta yar mutaqaana halkan maxay tahay harakooda iyo bariis ku cunayna waana soo afjarnaa laakiin marka hadda saxaafad la geliyay media meel walba laga sii daayo kuwa aan quraacin maalmo marka yar warma waxaan ay qaranayaan saxaafadda la soo jeeyaa hoosta ka sii dalinyar maxay hoosta ka sii warastan ka xuno hoosta waxa kalaha marka aad bireynayso ay sii biyaha siiyay inta bilaadan doonaan layno
laakiin inay fudul runtii ma aan jeclayn anigu qolada saxaafaddu in wax laga duubto saxaafaddana nagula dagaalamsana 3 jeer hadal xoola keenayo marna saxaafaddu ma aaminaynin waxaanu ujeedadaydu waxay tahay saxaafadda si kale uguma kacsanin loo baahante iyo harte dagaalka inuu hantidiisa u cuno oo u huro waa isku raacsan yahay waana la wada ogyahay laakiin marka hadda saxaafad la geliyey miidiya meel walba laga sii daayo kuwa aan quraacin maalin marka iyo warma waxaanay qaranayaan saxaafadda la soojiyaan leh hoosta ka sii dhalinyar maxay hoosta ka sii wararkaan ka xuno hoosta waxaan kaloo ku darayaa intaa kuwa aynu hadda seena buurteeda noo dhaxayso 2 bilood hilib cunaan dhalay war gobonnimadu waxay ku jirtaa ma ku wada gobonnimadu waxay ku jirtaa inaad xitaa neefka markaad falayso عايز يبيع وصيح ولا لا ثانية 8 وحبينه هذا نقول دقالنا واحد يرقصه عي لما كان صويد الوقت يا شيء المركب روح عليه الهين هدي عليه وحبايده كما هيصنوا والله إنسان إنه دقالنا ما يصان ما قرنينه لكن هدي سايد كل نقطة يقول إلهي عقلك هذيك السعودي ديكينا مرهبنو ديلكينا مرهبنو حماتينا مرهبنو كدبنا يا هو صومال حق كدبنا هو صومال والبارنتا يدا او فيرسدو او عقل way soo noqday hadaad diidaan waxba dhulka laga mayaalay balees wax ku dardaarmaya garaad soo fee hilib geel iyo kurs geel baan ku dagaalamayna wax laga dagaalamayna waa taas oo wada aragtaan waa taas aad ka daawanaysaa nimanka aynu dagaalamayno buurta yar inoo dhaxayso shaydaanku halka keenayo musabbix war waxaan anigu leeyahay cilmidu war xoolaha marka aad bireynayso aysiyo biyaa la siiyaa inta berguna hadaynu doonaan layno laakiin inay fudul hilibka waxa laga siiyaa anigu taagna waa sida nimanka ciidan dabal xagana waa sida xagaas ay dabayshu u dhacaysa sirinta ku dhacaysay waryaareen war gobonnimada inay ka kaltay assalaamu calaykum من بحضلي حلمان هو لله عبد القادر عنده من قاسي ويقعريسي قف كستو سومالان دنين يا أما هيستوري كذا هي أما سياسة ده لسه أنا وكعريسين يا بكو داولا
وحري تجربة كتير والسماء اللي تجربة كتير هذا أكتر عبد الرزاق قرنبو إنك تشوي عبد الرزاق سياسة قرنبو إنك تشوي عبد الرزاق وسير نقنبو تشوي عبد الرزاق بارلمان تشوي إمام بو تشوي صدق سنوات بحلي ما يسوع لأن كبضنا هبين كعوة إربادو مرو شاعرين كرس سومالي لان وكربا يعتمو وميسك وقراعو وهدي هاي كده جيو وهنشبو والحصوفر يستوى مالين قرها وكوكلا دريريها شاقو isaga loo haystaa iyo kuwii la ladka ahaa waxa ka dhacay Sool waayo 3 sano mambarka u soo fadhiyeen reer Sool habeen qura may xididada uma aasi wanaagooda inda xagu ku maqnaa wuxuu maanta leeyahay waan ku la tagayaa oo hayn jiray waa baxay muxuu hayn jiray inuu xishoodo weeyo oo qaranka ka xishoodo oo ummadda ka xishoodo oo reer Sool ka xishoodo annaga naga xishoodo ما أها تدكي كوبايع تمي هوا متجينا سمال تج مكده تج عندنا بس وحاسو كلام ما عندنا بيوشير كلا يمانين عندنا وحنا يومدا كحشود ومدا هذا هذه محكمة وسيوت هقول القرآن صور بعد صدر سرود سيتي بورس كسيتي وتورت كسيتي كلام دي ما قاعد يكون سيدي محل يعني هذا كم قد تدار القرآن ولا على حساب تبين قولوا لك على حساب تبين كحشود بنا يومدا سمال لنا وانك تعسيدين يا وحي الصور كدعي بيرسونال أنا أقول غير صور وإيه الكيجي haddii aan ka dhex galo wasiirro ka tirsan xukuumadda xildhibaano indha ka mid yahay iyo maxay ahayd tolay hal door kale way tagan magaalada Laascaanood hase yeeshee waxba ama nabad way ka keeni waayeen maxaa aad ku ogatay in aad tiraahdo ka xishood ummadda xildhibaan indho qura yana personal attack hay personal attack ma isaga islahay xildhibaanku isagoo jisada sare joogay oo wax ka keeni waayay maanta inuu baayacto ma inuu iska faysto waran uu taago ay bilcid kale u diray inuu miiska garaacana waan tagay yiraahdo 30 sano meel reer soo ku qanacsaneen inuu fadhiyo golaha gurtida xildhibaan indho kuma qanacsaneen hadii ku qanacsan yihiin waxa sibay dhaceen 30 sano reer ku dulmaa cid maqaar saara oo aan karaamo ku dhexrayn reer ayaa mar walba mabarka u fadhiyay mid iyo laba madiya leeyidu duleed joogta maqashiyo ka hakada mudurugtada ayay geelu dirataa Somaliland ee ay leedahay wata ilaahay